musharaxad nimco maxamed cawaale oo u taagan doorashada golaha deegaanka degmada Gabiley kana sharaxan xisbi xaakimka kulmiye ayaa iyadoo dhiiri gelinaysa dhalinyarada ciyaaraha si ay uga jeestaan balwadaha xunxun iyo aafada tahriibta waxay maalgelin ballaaran ku samaysay mid ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee heerka koowaad kuwaasi oo tartanka bisha barakaysan ee Ramadaan uga socdo magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley iyagoo ku ciyaaraya garamaan ay ku xardhan yihiin magaca musharaxad nimco maxamed cawaale ugu horeyn kabtanka kooxda ku ciyaaraysa magaca musharaxad nimco maxamed cawaale ayaa sheegay in markasta garabkeega taagan yihiin koox xamaas magaciisa maxamed jibril maanta xidbaanadu waxayna garab qabatay وسيشنانه عندهم ينوكل أي ما أنت نقرب تاجنتك أو ما أنت أنا كنا هي اليوم بدون هور تاجنني أنا كم مرة هور تاجنين إمي كنا هور تاجن ما لينكستنا سام بنور تاجننا لا يحرك هاي هو قبل يسوق waxaan halkan aan ka cadeynaa hadaan nahay baxda sports iyo hadaan nahay dhalinyarada gobolka Gabiley inaan nahay wiilnimo Maxamed Cawaale soo saara una ololeeya doortana gabagabadii musharaxad nimco maxamed cawaale ayaa dhankeega sheegtay haddii ay ku guulaysato tartanka doorashada golaha deegaanka degmada Gabiley inay markasta ka shaqayn doonto dhiirigelinta dhalinyarada ciyaaraha anagoo ka duulayna dhiirigelinta dhalinyarada iyo baxda sportiska waxaanu maanta ka soo qayb galnay tartankii Ramadaanta ee kubadda cagta waxaanu aad iyo aad u dhiirigelinaynaa dhalinyarada anagoo ka duulayna inaanu ka wacyi gelino mukhaadaraadka iyo balwadaha sida qaadka iyo wixii la mid ah waxaanu ku dhiirigelinaynaa dhalinyarada inay dhamaanba ka suulaan ama ay iska daayaan mukhaadaraadka ama jaadka iyo balwadaha oo ay kubadda cagta iyo ay dardargeliyaan oo ay booskii ay Gabiley ku jirtay kubadda cagta ay soo celiyaan ay soo nooleeyaan dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa hadii aan ku guuleysto kursiga golaha deegaanka inaan la shaqayn doono inaanu sportiska kor u qaadi doono inaanu si dhow la shaqayn doono insha Allah bidmillah karim waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka Case